dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu soo celinayo shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines oo aan shaqeynin tan iyo burburkii dalka. Haddaba maanta madaxda wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliya iyo guddiga gaadiidka u qaabilsan baarlamaanka ayaa la kulmay shaqaalihii ka shaqeyn jiray Somali Airlines si looga talageliyo dib u nooleynta shirkadii diyaaradaha Soomaaliya. ugu horeyntii mid kamid ah shaqaalihii hore ee Somali Airlines iyo xildhibaan Ilkacaas oo ka tirsan guddiga gaadiidka ee baarlamaanka ayaa halkaas ka hadlay. waxaan marnaba ugu hambalyeeyaa xafladan inay rasmi u dhacdo oo aan xaaleyno waxaa ka mid ah waxaa ka soo qaybgalay guddigii gaadiidka ee baarlamaanka oo aan cidna horta waxaan ii sheegay inaan dad muwaadiniin oo Soomaaliya tihiin caddeynayso xukuumadda wasaaradda gaadiidka cidii faalaysay oo si socota soo gashay. Somali Airlines taariikh dheer bay leedahay ma soo wada koobi kara maanta halkan ku hase ahaato Somali Airlines anu waxaan ahaa qoladii 95-75 kii la qoray waxaana train gareysay British Caledonia oo loo yaqaanay Timber Airline. British Timber waxay ahayd labadii diyaaradood ee 707ka oo Somali Airlines soo kireysatay ee ugu horeeyay wax badan baa soo marnay. Britishkii markii naga tagayeen qofkii ugu horeeyay senior person laga dhigay baan ahaa. wasiirka wasaaradda duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa sheegay in dawladda ay ka go'an tahay dib u nooleynta Somali Airlines. Somali Airlines ahmiyadda ay dawladdu u leedahay iyo in dawladdu ay serious ka tahay dib u soo celinta Somali Airlines marka ugu horeysa inaan inta idin la share gareeyo. marka labaad Somali Airlines ma soo noqon karto la'aantiin. dadkii aqoonta u lahaa waa idinka dadkii ka soo shaqeeyay waa idinka dadkii ay ka burburtay Soomaaliya oo idilba ay ka burburtay laakiin idinka ay saameynta ugu weyn idinku yeelatay in aad ku soo xaadirtaan muddo yar gudahood waxayna tusaysaa idinkana ahmiyadda aad u haysiin Somali Airlines iyo sida ay meel weyn idinkaga taal oo rajaynaysiin in maalmaha ka mid ah aad aragtiin Somali Airlines oo dib u soo noqoto. marka shirkani waa shir hordhac u ah shirarka dambe ee wada tashiga ah ee aan ballaarin doono ee soo socda dawladda ka raali noqdo. waxaana ka wada tashanaynaa sidii aan Somali Airlines oo la jaan qaadi karto adduunka maanta waxa ka jira aan dib ugu soo nooleyn lahayn. marka wada tashigeena waxaan rabnaa inaan ka bilaawno meesha saxda ah ee wada tashiga laga bilaabano waa idinka. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.